5 dangerous apps you should uninstall. Are you sure? Yep, I am sure you have to delete it, man. Google Play waa source muhiim ah oo laga download garaysto ani apps aad u baahan tahay balse qaar ka mid ah appska ayaa dhaawici kara mobilkaaga una fududeeya in attackers ku la baxaan personal information kaaga ama ay la baxaan lacag kugu jirta talkaaga. Number 1. Optimizers like Clean Master. Waxaanu aaminsanahay inay nadiifiyaan ama inaga saaraan fileska aan muhiimka ahayn. But most phones today come with this function already built in. Balse waa useless apps waxay dilaan batteriga, culaysiyaan mobilka, mana fududeeyaan talka. If you love your telephone, delete it, man. Browser with additional feature. Inteena badani waxaanu isticmaalaa browsers si aynu uga access karayno internet serviceska. These types of application have two major downfalls. First, waa dawa kaliya attackers ku adeegsadaan, and they also really slow your phone down. Second, waxay diraan emailkaaga iyo passwordkaaga una diraan shirkadda iskale browserka. Oh, shit. That's real? Yup, that's real, man. For example, UC browser kaasoo ah midka loogu isticmaalka badan yahay wadamada China iyo India because of it saves you tons of megabytes in usage. Iyaamin marka browserkan waxa gudbiya information kasta oo telka ku jira, tusaale ahaan your account password, your search, IME number and other information to Alibaba website. Apps for increasing your phone's memory. Appska loo adeegsado in lagu kordhiyo GB-ga ama xajmiga memory-ga. Khatartu waxay tahay waxay u kordhiyaan si ku meel gaar ah ama temporarily ah. waxaana ka lumi daatadii aad ku shubatay oo dhan. So, be careful. Weather appsku waa apps loogu isticmaalka badan yahay dhawaanahan, balse waxay hoy u yihiin nooca fayraska ee loo yaqaano Trojan. In ka badan 5,000 oo qof ayaa download gareystay application-kan si ay ugala socdaan arrimaha cimilada, balse kama warqabin inuu banking information-koodii uu gudbiyay application-kani. waxaan filayaa inaadan ku dhiiran inaad download garaysato. Wi-Fi appska loo adeegsado Wi-Fi-ga sida kuwa lagu jabsado Wi-Fi-ga runtii waxba kuma jabinayaan adiga ay jabsanayaan telkaaga. waxaana ka mid ah Master Wi-Fi Key, Free Wi-Fi Go, Smart Free Wi-Fi and Free Wi-Fi Connect. maalin kasta waxaa la soo gashaa application-ka Google Play-ga. inkastoo shirkadda Google check garayso haddana la iskuma halayn karo khatarta ay u keeni karaan talkaaga. So, caafimaadka teleefankaagu adiga ayuu kugu xidhan yahay.